Shirkadda rasmi oo ah shirkad sameysa agabka noocyadiisa kala duwan ayaa markii ugu horeysay magaalada Beledweyne waxay ka hirgelisay inay sameyso haanta biyaha lagu keydiyo iyo jiingada casri ah. Inta badan haamamkani waxaa laga keeni jiray meel ka baxsan magaalada Beledweyne, balse haatan waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haamamkani mid ka duwan ay dadka hore u isticmaali jireen, iyagoo sheegay in caqabado badan kala kulmi jireen. Ugu horeyn, Maxamuud Xasan Shire, milkiilaha shirkadda, ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha shirkadani ay qabato iyo baahida ugu weyn ee keentay inay haamamkani soo saaraan. halkani waxa waaye rasmi fiberglass factory oo warshada sameyso haamaha fiberglass. marka waxaan sameynaa haamihii oo kala duwanaa nooc kasta ay lahaayeen. waxaan kaloo sameynaa doomaha, waxaan kaloo sameynaa laamiyeriga oo maartay iftiinka oo fiberglass aan ka sameyno, taasoo sameynaa. marka haantaan oo kale hadda waa 5 fuustaqaad, 10 fuustaqaad waan sameynaa, 15 20 25 50 fuusto hadda qofka baahidiisa aan sameynaa. marka warshadan rasmi fiberglass waxay soo martay marxalado badan. hadda alxamdulillah waa ku guuleysanay. waa aragtaa haamaha aan sameyno ujeedaa in hadda maalan waxaan sameynaa kala bacweynahan oo caadiga oo fiberglasska. bacweynahan waxa loo adeegsadaa hoolalka kale marka aad sameysid inuu iftiinka guri maadaama hadda kor ka dabuushid nal maalin kasta miska bixibeen maalin wuxuu u baahanayaa nal. meeshii nalka looga baahnaa lahaa waxaan sameynay laamiyeri oo bacweyne oo fiberglass ah oo uga baahanaysid uga maarmaysid inaad leer isticmaashid. laamiyerigan iftiinku soo jiida maalin camal oo kaaga dhigaya hoolkaadii ama meeshaad goobtaada aad ku xirato, haddana waxa uga maarmaysaa inaad nal isticmaasho adoo waxa waaye iftiin fiican helaysaa. kanoo kale asna waa sameynaa laamiyeri caadi waaye. laamiyerigaas sameynaa oo asna waxa loogu talagalay iftiinka loogu talagalay in laga helo hoolalka kale, warshadaha hoolalkooda kale, meelaha maartay laga shaqeeyo kale. adi waxa loogu talagalay meel kasto iftiin looga baahdo in lagu xiro. baqaarada kaydka kale sidaas dadkaas naga gato, dadka baqaarada leh oo kale naga gato maadaama meesha nalka isticmaalayeen habeenii maalin in maalintii nalka ka maarmaan burcabeedkan oo fiberglasska ama laamiyerigan fiberglass ay ku xirtaan. sidoo kale qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay nooca cusub ee haamamka shirkadda rasmi ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen, iyagoona u mahadceliyay maamulka iyo howlwadeenada shirkadda rasmi. waxaa kamid ah yani fiberka haantaan weyn hadda biyaha aan ku shubano. waagii hore xamar aan ka dalbi jirnay, lacag aad iyo aad u qiimo badan inoogu imaan jirtay oo baabuurka uu qaadanaya wiraan $400-500. min aad iyo aad aan ugu mahadcelinahay shirkadda kambaniga rasmi. aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa, ilaahay khayr ha siiyo. alxamdulillahi rabbil caalamiin. baahi weyn aan u qabnay, baahi aad iyo aad weyn aan u qabnay haantaan oo laanu biyaha warshada markay ka soo baxaan meel lagu shubo oo lagu kaydiyo ay rabaan. haaman hore ayaa awal noo saarnaa jiray, hadirtaan waxaan ku diirsanay haantaan oo rasmi. aad ay u fiican tahay. haamihii hore awal macnaha waxaan biyaha markii aan ku qaadno waxaan ku arki jirnay daxal iyo waxyaabo biyaha oo wasaq u keenayo. laakiin maasha Allah hadda haantaan si aan u helnay waa biyo nadiifana waa ku helnaa. waxaan halkaan uga mahadnaqaynaa kambaniga noo keenay haantaas iyo dhismaha horumarka u leh magaalada. haantaasoo aad ay ugu diirsatay magaaladu. awal waxaa naloo alxami jiray bir kulayl fara badan keento, mirir keento. si 100% aan uga raysanay. waxaan u mahadcelinaynaa marka kambanigii noo keenay oo shaqadaan qabto fakiray. Mun Xuseen Cabdi, Hiirshabelle TV, Beledweyne.